siyaasadeed ayaa waxa uu ka taagan yahay doorashada Jubbaland iyada oo la filayo in maalinta berri ah ay magaaladaasi ka dhacdo doorashada madaxweynaha Jubbaland maanta magaalada Kismaayo waxaa lagu soo warramayaa in baarlamaan ay sameysteen xubnaha isbedel doonka Jubbaland ee iyaguna dhageysanayaan khudbadaha musharaxiinta ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay kadib amarkii ka soo baxay guddiga ammaanka Jubbaland ee ahaa in la xiro dhammaan magaalada Kismaayo dhul cir iyo bad intaba haddaba wariyaheena Cabdimajiid Cabbaas Aadan ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa ka soo diray magaalada Kismaayo magaalada Kismaayo ayaa isu diyaarinayso jawi doorasho waxaana magaalada sidoo kale maanta laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidanka Jubbaland waxaana maalinta berrita lagu wadaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha Jubbaland sida ay horaan u shaaciyeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ciidamada kala duwan ee Jubbaland ayaa xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ka wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Kismaayo waxaana xiran goobaha ka agdhow ee lagu qabanayo doorashada madaxweynaha Jubbaland sidoo kale magaalada ayaana jirin gaadiid ka baxaya iyo kuwa soo galayaba dhanka kale musharaxiinta la magac baxay garabka isbedel doonka ayaa dhankooda hore u shaaciyay jadwalka doorasho ee madaxweynaha ay doonayaan inay ku magacaabaan waxaana xalay uu guddiga doorashada garabka isbedel doonka shaaciyeen inay maanta jirto hadal jeedinta murashaxiinta dhankooda lama oga sida ay ku suurtagelayso in magaalada Kismaayo ay ka sameeyaan hadal soo jeedin musharaxiin madaxweyne oo kale shacabka Soomaaliyeed ayaa isweydiinayo sida ay suurtagal ku tahay in ay Jubbaland yeelato laba maamul oo la iska garab doorto Cabdimajiid Cabbaas Aadan Fantastic idaacada kulmiye magaala xabeedka Kismaayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada Liibaan Cali Yarow ayaa sheegay in madax ka tirsan dawladda ay guryahooda ku hayaan xubno ka tirsan al-shabaab sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Liibaan Nuur Xasan maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka hadashay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka soo goosta ama ay soo dhiibay isla markaana aan marin diiwaanka saxda ah ee ay ugu tala gashay maxkamaddu inay maraan shakhsiyaadka la shaqayn jiray al-shabaab gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Liibaan Cali Yarow ayaa sheegay inay jiraan dad ka qayb qaata qarinta xubnahaasi oo isugu jira mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo dadka shacabka ah waxa uu sheegay gudoomiyaha maxkamaddu inaysan ogolaan doonin inay guryaha ku haystaan dadka aan diiwaan gashanayn isla markaana aan marin sharcigii loogu talagalay inay maraan gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in dadkaasi oo qaab qabaa'il ugu haysta guryahooda oo saraakiil iyo xildhibaano isugu jira ay iyaga la mid yihiin waxaa ku badan gobolkan in shabaab badan uu soo baxsado oo isoo dhiibo qaarkoodna la diiwaan geliyo oo hay'adihii loogu talagalay loo geeyo wasaaradda amniga koonfur galbeed ay maraan systemkii la marsiiyo marka maalmaha markaan imaanay waxaan ogaanay xog fara badan qaar isu soo dhiibay ayagoo hubkooda wataan qabaa'ishooda ama xildhibaanu u yimid ama sarkaal ka tirsan dawladdu u yimid aanan weli la diiwaan gelinin cid laga dhegaysanaayo ama laga aqbalayo ma jirto qofkii agtiisa lagu arko asoo qof shabaab soo baxsaday ama gurigiisa ku haayo weli uusan diiwaan gelinin wuxuu la mid yahay sida shabaabka oo kale asna wuxuu qaadanaa tallaabada shabaabka lagu qaadi lahaa aysan lagu qaadaa hadalka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli shabaabkii ugu badnaa oo muddooyinkii ugu dambeeyay isu soo dhiibay dawladda Soomaaliya wuxuuna hadalkaani ka sheegay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo hadda uu ku sugan yahay xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay shaacisay hantida dawladda ee gacanta ugu jirta shakhsiyaad gaar ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay arrintan iyo qodobo kaleba warkan faahfaahinaysa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta warbaahinta kula hadla xafiiskiisa ayaa ka hadlay arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya wasiir Bayle ayaa sheegay in hanti badan oo ay leedahay dawladdu ay gacanta ugu jiraan dad gaar ah waxa uu sheegay in 3494 oo ah xarumo ay dawladdu leedahay oo ku kala yaala dhammaan gobolada dalka ay gacanta ugu jiraan dad gaar ah isla markaana ay wasaaradda maaliyadda dhawaan shaaci doonto sidoo kale liiska xarumahaasi ay ku wareejin doonto guddiga soo celinta hantida dawladda wax alla wixii meesha ku lahaa ayaa halkan ku qoran
oo intaasoo kun ah waa hantida maguurtada ah 3,449 goobood oo aan muqdisho kali ahayn of course waddankoo dhana ayaa lasoo tira koobay markaa taariimka wadnaa waxa weeye mid walba laisku intaago mid walba habkuu yahay la eego intooda badan waaba laisku intaagay waa lasoo sawiray cidda haysataa lasoo sheegay ama ku jirta necessary inay haystaan maaha qof baa iskaga jira waa laga yaabaa oo dee rumaysan in dawladdu leedahay qaar rumaysan iyagu leeyihiin ama qaar baabali waan iibsanay inay ka iibsadaan anagu allahu yaclam ma garanay stepka labaad ama tallaabada labaad inaan arrintaa dabagalno oo lasoo beerigaadirnaa hantida guurtada oo gawaarida qalabka xafiisyada ama kombiyuutarada waxaasoo dhan iyagana waa soo tira koobnay waxa iminkaan annaga aan muhiimadda saarayna waxa weeye wax waloo dawladdu leedahayba in registerka la geliyo hab laysla gartaa ayaa halkay dadka kala jiraan dhammaadna markuu dhow hadhow waxaan gudbin doonaa muxuu haynaa guddiga cusub ee ra-iisul wasaaruhu sameeyey ee soo celinta hantida qaranka ayaanu gudbin doonaa ayagaa markaa dabageli doonaa oo arrintaasi soo dhamayda meel wanaagsan marayna dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay wadamada lacagta ugu badan ku leh Soomaaliya deynta 5 bilyan 3 group ayaa inagu leh waxa weeye baanka internationalka IMF iska leeyahay World Bank IMF ka iyo African Development Bank weeyaan saddexdaas kaliya la isku geeyay bilyan wax ku dhow ayay inagu leeyihiin waxa kale oo jira wadanada oo kala qaybsamay oo qaarna leeyahay Paris Club ayaa iyaguna jiro 3 bilyan ayay inagu leeyihiin arabahana inta kale ay leeyihiin non Paris Club ayna arabuhu waxa adduunyada kale kaga duwan yihiin waxna dawladda inagu leh intooda badanna hay-ada ay iyagu wada leeyihiin bay nagu leh iyagu qolooyinkaas deyn ma cafiyaan dib uunba u dhigi kara lacagaha wadanada ay nagu leeyihiin waxaa ugu badan Talyaaniga iyo Faransiiska labadoodana waan ka shaqaynaynaa in ay naga cafiyaan deynta oo ay habkooda u sameeyaan Soomaaliya ayaa waxay dadaal badan ugu jirtaa sidii deynta lagu leeyahay looga cafin lahaa waad mahadsantahay Maryam webiga Shabeelle ayaa ku fatahay goobo u dhow madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe wariyaheena Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar fatahaaddan webiga Shabeelle uu ka sameeyay goob ku dhow xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ayaa haatan waxaa socda dadaalo dheeraad oo lagu doonayo in lagu xiro fatahaaddaasi webiga Shabeelle gudoomiyaha tuulada Moyko ayaa waxa uu sheegay inay fatahaaddaas ay tahay mid cabsi weyn laga qabay maalmihii la soo dhaafay goobta uu ka fatahay webiga Shabeelle waxaana uu tilmaamay in haatan dalagyo beereed ku yaala halkaasi ay saameyn ku yeesheen fatahaadda webiga Shabeelle fatahaadda waxay bacdi xali 7 saac bacdi qaabka ku bacdi webiga buux dhaafi kalka waa qorshe way ahayd qorshubkii marka dambe waa dhulkii waa jecmi kalka fatahaada ay noqotay beeriya beeriyay galeen kuleba waana laga soo gaari kaylaan dirni maamulka noo yimid idaacada lagu yeeri idaacadii noo timid kulli wixii maanta boomea ka dhacay ayagana waa arkeen kulli waana loo soo gurmadi looma kala yeerin ilaa Moyko dadaalka socda insha Allah ilaahay انت كره سو بعد لكن انت ما دينعاد حق فرحه عكس جيري سو بعد الحمد لله بير مدوا هذو الى بدك بيرنا عياله باللي ابو تالي الصلاتي وكروتي وكل واحد ويا الدغريو babaaya waxa dumuriis shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee dhaliil u jeediyay maamulka Hirshabeelle kaasoo ay sheegeen inaysan wax ka qaban goobaha cabsida laga qabay oo fatahaadda webiga Shabeelle oo muddooyinkii la soo dhaafay ay soo sheegayeen dadka deegaanka inta badanna haatan ay jirto maamulka oo ka gaabiyay in laga hortago fatahaadda webiga Shabeelle markii madaxtooyada u dhaayeen ka dhaqan marka dheerna hadda loo wacno waa meesha bulshada meesha madaxtooyada u dhaweyd oo ama jaafo u dhaweyd magaalada dhaqaalaheeda meeska imaanayna waa kolle wadada marka maamulka meesha mataqaanaa hadda ka madaxaday oo dadkii shacabka rayidka ay dadaalayaan oo biyo xirayaan oo hardamayaan waxaa ku daran aytar dambiga oo go-ay iyo mas-aytar yaaba oo go-ay waxba kuma tooreen laakiin dhibaatada daysanayn aana meeshaan marka waxaa laga rabaa mas-uuliyadda maamulka ay saaran tahay sida maxaan ku sheegay kaabayaasha dhaqaale buurle badana wax soo saar inaas ku magaclada ummadda dhan waa ogsan tahay marna inuu biyo la-aan dalag leeyahay marna
ay biyihii dalagii ay gacanta mareen marka maamul dadkan rayd waa dad mataqaanaa abuurtahay maahan dad warkooda loo imaana amba loo baxaayo maahan iyagana marna waa guraa marna dhibaatada geystaa marka waxaan leeyahay maamulkii inay mataqaanaa iyadan dadka masaakiinta oo beera qabatada maxaan ku sheegay asiga aysa ay hoggaan u yihiin oo loo damqo maxaan ku sheegaa markii la maqlaa mataqaanaa waaga ceeb sababta madaxtooyada agtiisa bug ka go-at maamulkana kuwa soo lagu dhiiban laa dhibaato marka ana maamulka waxaa ugu baaqala meel guriga degdega loo timaado meel dheeroo mataqaanaa loo baxaa inay meel shiyaal khasaara imaan webiga shabeelle ee mara gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka jowhar balcad iyo mahadaay ayaa inta badan haatan cabsi weyn ay qabaan dadka degan hareeraha webiga shabeelle inuu fatahaad ka geysto goobo kale oo gobolkan shabeellaha dhexe bashiir cali daahir raadiyo kulmiye jowhar dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada xoogga ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka degmada qoryooley waxaana la sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal kooban goobjoogayaal ayaa idaacadda kulmiye ee muqdisho u sheegay in dagaalka xooggiisa laga maqlay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose isla markaana cabsi badan ay soo wajahday dadka shacabka ah saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan qoryooley ayaa sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaalka maanta ka dhacay degmada qoryooley oo ah gobolka shabeellaha hoose gobolkaasna waxaa ka soconaya dagaallo u dhexeeya ciidanka militariga soomaaliya iyo ururka al-shabaab